عثمان بن عفان الله الرالي كان نقضي الضوميه سي أدون كميدو وياري مالين وعور العقد انقاد أبو ذر الغفاري وقي هدو العقد أبو ذر هدو العقد كاقاتنا حربات هاي بكير حر واكو حري أبو ذر مركا مقالة مدينة دبدة دقنا ريب دم الليلة وعثمان بن عفان باكود هلكا أقول رضيبو وأيوان زاهد أبوها قرني نبي قد موداينو جوغي سوغو داد كان تابعين تا الدين تقصو قلال دنب كيمي دي أدوية دي لي مادين ودنو ونفين يا سوغو دركي نبي محمد وكاكد تيبو ستاولي عريشك نبي محمد وكو أغانا وقلا عنتدي عهدي نبي قو نبي قال لعوني ينا ولي وعنا يسوغو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه marka ninkii adoonka lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhiganin ba lacag diidi kara soo sida ma hinde mani ba lacag diidaya waska jecelahay oo yimiday oo salaamay wuxuu amirkii muuminiinta Uthman baan salaan kaaga sida waan ka qaaday bal waran isaga ka waran daar al khilaafa ka waran masjidii nabiga ka waran muslimiinta xalqooga ka waran markuu uga waramay ayuu yiri lacagtana uu soo dhiibo wuxuu yiri Abu Dar u geel lacagtaas markaasuu maxaan ka dhigaa wuxuu de haw kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yiri u celiyo waxaad ka tiraahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa Madiina joogtay cidaasi ka dhabu yiri inaga maanta lacag nin diidi kara uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahideeda ilaahay baa iga daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaga laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istighfaar baan haystaa quraan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilay waa diin weyn adduunyo ma markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninka lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ay runta u sheego wuxuu ku yiri amiirka wuxuu igu yiri haduu Abu Dar lacagta ka qaato xor baa tahay buu igu yiri ar walaal adoonnimada han ka baxee xoreeyo lacagtan iga qaado buu ka yiri markaasuu ka qaadan maayo waxaad doonto akhri markaasuu loriga qaado oo ina xariiso maxaa kuugu naxariistaa haddaa lacagta iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi Abu Dar dhegayso hadalku ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anu addoon xor aan ahay buu yidhi xor bas ninkii lacagta isagoo wada Cusmaan u keenay wuxuu yiri waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagta ka qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunyo u jeeda maaha Abu Dar al-Ghifari lacagta daliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacanta ku hayso diintaada iyo aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii